waxaan ku sugannahay hoolka jaamacadda culumta caafimaadka oo halkan saaka si rasmi ah uga furmay bandhigga buugaagta Bari Book Fair oo markiisii ugu horeysay magaala ganacsiyeedka Puntland ee Boosaaso lagu qabanayo maalintiisii koowaad waaye qorshuhu waa in laba bari uu socdo waxaan la joogaa oo aan hadda ku suganahay qayb ay ku soo bandhigayso adeegyada hayso shirkadda Somtel oo barnaamijkan iyada qabsoomidiisa qayb weyn ka qaadatay mid kamid ah Cabdisaaq ila jooga waaxda suuqgeynta ee shirkadda ay kamid yahay balse maxay idin ka dhigan tahay qabsoomida barnaamijka bismillaahir rahmaanir rahiim maanta magacayga Cabdisaaq qaybta suuqgeynta Somtel baan ka tirsanahay maanta aad iyo aad baan anaga ugu weyntahay hadaan ay shirkadda Somtel inaan ka soo qabno Bari Book Fair khaasatan maanta laga qabsoomayo magaalada Boosaaso shirkaddu waxay bixinaysaa adeegyo badan bay bixisaa shirkadda Somtel waa shirkadda dadweynaha shirkaddu waxyaalaha bixiso waxa kamid ah internetka baa haysaa homiska guryaha waxa haysaa internetka xafiisyada waxa haysaa internetka mobile datadii waxyaalaha shirkadda mucjisada ay bixiso oo waligeeyna aan dadku waxa kamid ah adeega dhameys oo kale waa $1 baa laga shubanaya bishii Puntland oo dhan Soomaaliya oo dhan baa lagu hadlayaa Puntland ilaa Soomaaliya oo dhan baa lagu hadlayaa halka $1 waxay bixisaa shirkaddu 0.5 oo 30 saac unlimited ah waxay bixisaa shirkaddu 2.5 unlimited waxay bixisaa shirkaddu $15 oo waxay tahay bil dhan oo unlimited waxay bixisaa shirkaddu internetyo kale waxay tahay productyo kale oo fiican bay bixisaa marka aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan ka soo qayb galno Bari Book Fair oo ka qabsoomay magaalada Boosaaso fariinta aad macaamiisha shirkadda maanta halka ku sugan oo in badan adeegyada kala duwan internetka ku hadalka ka isticmaala aad u diraysaa maxay tahay macaamiisheena waxa u diranaa inay nagu soo dhawaadaan maanta ku soo dhawaadaan oo shirkadda Somtel ku soo dhawaadaan in shirkadda Somtel waa shirkadda dadweynaha inay adeegyada aan u hayno in nala fiiriyaan oo ay qaataan baan rajaynayaa insha Allah aan dadkana gaarsiino insha Allah shirkadda isgaarsiinta casriga ah ee Somtel